safiirka dowladda Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya Ambassador Kobi oo ay weelisay Dr. Giordano oo ah dhakhtar ku takhasustay xanuunada ku dhaca wadnaha ayaa maanta booqasho ku yimid isbitaalka daaweynta xanuunada ku dhaca wadnaha iyo qalliimadooda ee Horjooga. Dr. Cabdirashiid Sheekh Yuusuf Guuleed ayaa safiirka iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyay isbitaalka wuxuuna sheegay in booqashada safiirka ay tahay markii labaad oo sanadkan gudihiisa uu ku yimid isbitaalka si shaqada socota iyo baahiyaha ka jira isbitaalka ugu kurgalo. qaybaha kala duwan ee isbitaalka ayuu safiirku booqday isagoo kormeerka kadib kulan gaar ah la yeeshay maamulka isbitaalka Horjoog iyagoo ka wada hadlay sidii dowladda Talyaaniga ay gacan uga geysan lahayd kiisaska qalliimada iyo daaweynta wadnaha ee isbitaalka Horjoog oo ka wada Soomaaliya. kulanka safiirka iyo maamulka isbitaalka kadib waxa warbaahinta la hadlay dhakhtarka daaweynta xanuunada ku dhaca wadnaha ahna aasaasaha isbitaalka Horjoog Dr. Cabdirashiid Sheekh Yuusuf Guuleed. safiirka dowladda Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya Ambassador Dako marka safiirka aadan uga mahadnaqaynaa codsiyadii aan u gudbinay oo tirada badnaa oo ah dhibaatada aan ku qabno in bukaanada Soomaalida gaar ahaan caruurta ka jiran wadnaha oo ku dhalatay cudurrada wadnaha ee u baahan qalliinada in loo helo يعني قلين أيقون أباهنين دبدة إن الله قاضو ما دام مركز إسبيتال كان شغلي سيتاي وضنها وحو أهمية جارة إيو تحدر جارة سيانا يعني عرور تيرير أو أم هذا الرتي أم ولده دو ديرتهاي أو أباهن قلينا داس هنقدين قلين فرن حسن نقدين أيضا الله فرن قلينا دو حلو حليو مركز رنتي عطيان وجود بيني وحنام وقت إنه كد ذالا يسيد وحنا قبلها ولي حقي سو حنا جسوا جاري ملها لكن هدي وحي إن الله قاضو أو وضن كيسي لو قد بيه أو يعني عدي وحنا لا قبله هذا لو حرا أيضا نبتدوا وحد وين وعن رجينا أرنتاس اللي جوليستو سي أن أبد بعدينه نلاشى عرورتاس بدن الصوماليات أو قبل كسته أو ذلك كميدا كنول حرونتان إن النقطة حرون وحلو قبته أو لو عاويه. ugu dambeyntii safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya iyo Dr. Giordano oo ah dhakhtar ku takhasustay xanuunada ku dhaca wadnaha ayaa maamulka isbitaalka Horjoog ka ballan qaaday in isbitaallo ku yaala dalka Talyaaniga ay ku xiri doonaan si ay uga gacan siiyaan qalliimada iyo daaweynta bukaanada ka xanuunsanaya wadnaha iyadoo laga maarmayo in bukaanada loo qaado dibadda. Che effettua una visita all'ospedale Horjoog. safiirku wuxuu yiri waxaan u imiday inaan markii labaad arko xaaladda isbitaalka qalabka ka maqan iyo sidii aan u caawin karno waad ogtihiin dawladda Talyaanigu waxay soo daaweyn jirtay ilmo yaryar oo waalidkooda ay la socdaan dalka dibadiisa lagu daaweyn jiray halka qof oo dibadda loo qaado 5 qof baa lagu daaweyn karaa dalka gudihiisa iyagoo joogan dantuna saasay ku jirtaa wuxuu u soo wata marka dhaqtaradan oo ciidamada ka tirsan oo ku takhasustay inay arkaan qalabka isbitaalka Horjoog oo haysto baahida uu qabo iyo wixii kale oo laga caawin karo si isbitaalka Horjoog oo u gaaro horumarka laga rabo ummadda inuu u adeego ummaddu hadaad wada qabayo biyo qabo waaya xataa hadaad lacag haysato laakiin aadan awoodin inaad dibadda isku soo daaweyso in dalka gudihiisa daawadaas laga helo waa ujeedadu waa intaas. Possa essere la prima visita di tante visite di tanti progetti di collaborazione fra Italia e Somalia.